السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وادا سومالي تكنولوجي maanta waxaan idin wadaa cashar aad iyo aad u muhiim ah oo practical ah oo si live ah idin tusi doona waxa aan sharaxayo maanta waxaan sharaxayaa farqiga u dhexeeya server machine iyo client machine sidoo kale network okay sidoo kale waxaan idin tusi doonaa online system baa idin tusi doonaa marka casharkan waa cashar practical ah oo si toos ah waxa aan ka hadlayo aad u arki doontaan okay maadaama aan kasoo dhex duubayo server control roomka ama qolka aan systemka serverka iyo client machines ay yeelaan okay waxaan ku codsanayaa subscribe tiraadaan channelka Somali Technology maxaa yeelay waxa idin la wadaagayo waa wax idinka muhiimad idin leh wax badan aad ka faa'iideysaan marka waano Axmed Jaada haddana waxa u gudagalaynaa casharkeeni iyo indhihiina wax ku arka iyo idinku indhihiina wax ku arka okay asxaabtu waa aragtaanba halkan waa printers ayaa yaala qaybtan korona waxaa yaala waa client machines waa mashiinadii client machines baa loo yaqaanaa waa aragtaan system ayaa ku rakiban halkan waa server machine waa mashiinkii maamulayay saddexdan client machines waa kan systemka server machineka okay systemkaas ayaan isticmaalnaa waa very powerful system halkan waa routerkii waa networkii isku xiriyay server machinekan iyo client machinekan okay marka client machine waxa weeyaan waa machino request ay wuxuu u dirayaan server machine okay server machine markaas ayuu process gareynaya requestiga ay u soo direen dabeeta jawaabta ayuu dib ugu dirayaa dabeeta jawaabta ayay siinayaan userska ama dadka marka client machine ka isticmaalaya okay laakiin ayagu ma lahan powerful iyo maskax iyo memory iyo hard disk ay xogta ku kaydiyaan ama ay marka waxa userku u baahan yahay markaas ay kala soo baxaan okay laakiin waxay ku tiirsan yihiin server machine maadaama server machine uu yahay machine powerful ah oo hard disk iyo memory weyn ay ku xiran yihiin xog badan kaydiyay marka ayagu kaliya shaqadooda waxa weeyaan marka userku uu taabto inay xogta diraan request ahaan xogtana server machine ay timaado marka la process gareeyo dib ayaa loogu celiyaa markaas output waxay siiyaan userska okay marka client machine waa machino ku tiirsan server machine okay marka request ayay diraan server machine wuxuu soo diraa response ayuu soo diraa okay marka request iyo response weeyaan okay jawaabaha okay waxa inta sahla oo isku xir waxa weeyaan waa network okay network waxa aan ka dhahay internet ama local area network marka waxaan ku isticmaalnaa local area network router ayaa meeshan yaala okay routerkan network ayuu siinaya labadooda wuu isku xiraya okay marka main network waxa ka imaanaysa server machine then routerka waxa ku sii xiran client machineska okay marka client machinesku waa machino aan powerful ahayn laakiin ku tiirsan mashiinka powerfulka ah oo ah serverka okay marka farqiga u dhaxeeya client machine iyo server machineka waa kala aragteen maxaa kale yahay network sidoo kale okay marka networka local area network haday tahay waa network local ah oo ku xadidan kaliya xafiiska ama organizationka companyga iyo kaliya okay oo aan dibadda laga isticmaali karin marka hadda tan waa local area network wayaan kaliya waxa laga isticmaali karaa mashiinadan bas ayaa isticmaali kara okay maadaama network ay ku egtahay kaliya mashiinadan okay marka adoo hadda telephone isticmaalisid networkan ma isticmaali kadid hadda sidoo kale aad dibadda joogtid ma isticmaali kadid marka waa local area network okay qofkii fiila haysta oo halka ka shada oo computerka halkan la fariisto kaliya ayaa isticmaali kara okay sidoo kale printerskana ayaguna network ayay ku sii xiran yihiin maadaama marka orderka la soo diro printerkan ay ka soo baxayso warqadaha ay orderka ay ka soo baxayaan marka printerku wuxuu ku xiran yahay routerka routerkuna wuxuu ku sii xiran yahay computerada okay marka markasoo computerada artina wax soo printer kareysid marka daawatay printi wuxuu imaanayaa codsigu wuxuu imaanayaa serverka okay serverka ayuu imaanayaa codsigu daawatay serverka ayaa jawaabaya jawaabta waxa lagu celinayaa mashiinka daawatay markaas mashiinka loo fasaxayaa inuu isticmaalo printerka okay marka waa order loo dirayo serverka uu aqbalayo serverku daawatay dib lagu soo celinayo mashiinkii client-ga ahaa markaas mashiinka client-gana loo ogolaanayo inuu isticmaalo functionka in ay la fuliyo ama implement lagu sameeyo okay marka farqiga u dhaxeeya aragteen sidoo kale systemka waxa loo yaqaanaa online ordering system waa restaurant food ordering wayaan marka dadka markay cuntada soo dalbadaan halkan ayay imaanaysaa qofka cashier-ka ama qofka markaas u xilsaaran inuu cuntada aqbalo ayaa aqbalaya
ticket ayaa loo jarayaa dabad saas cunta loogu process gareynaya. Okay, halka customerka magaciisa soo baxay magaciisa ayaa ku qormaya iyo telephone numberkiisa iyo addresskiisa ayaa ku soo qormaya. Okay, marka waa online ordering system. dadku marka cuntada soo dalbadaan halkan ayay imaanaysaa, waa laga arkayaa qofka cuntada soo dalbaday, dabad waa la aqbalaya accept, dabad addresskiisa magaciisa iyo telephone numberkiisa halkaas ayay ku soo qormayaan. marka waa is very easy. sidoo kale inta badan dadka IT-ga ah marka ay IT-ga ka hadlayaan waxa kaliya isbedela waxa weeyaan waa software-ka, laakiin hardware-ku inta badan isma bedelo. Okay, dadka system-ka dhalada iyo keyboard-ka mouse-ka intooda badan waa isku qaab, isma bedelaan. laakiin waxa isbedela oo qofku u baahan yahay inuu la qabsado waxa weeyaan waa software-ka. Okay, haddaad software-ka aad la haysan waad ka dhacaysaa IT-ga. marka IT haddaad tahay qof IT ah talada aan ku siin waxa weeyaan inta badan waa inaad focus ka saadid software-ka. Okay, haddaad software-ka aad focus ka saarin waad ka haraysaa operating system-ka, application-ada, different systems-ka. Okay, kuwaas way ku isbedela. laakiin hardware-ka hadda waa aragtaan system-ka computer system-kan dadkii 1999-kii iyo 2001-kii 2003-kii isku si ayuu eegyahay system-kan, isku qaab ayuu eegyahay, case-ka isku qaab weeyaan. Okay, keyboard-ka mouse-ka also all of them is the same, no change. laakiin waxa isbedelay waxa weeyaan software-ada ayaa upgradation lagu sameeyaa, development, new version, all of them. marka software-ada hadday tahay operating system-ka iyo hadday tahay different types of applications and different types of software, waa inaad si aad uga taxadidhaa software-ada iyo isbedelka ay sameynayaan iyo horumarka ay gaarayaan, waa inaad la socotaa si aad uga harin, haddii kale waad ka haraysaa. Okay, marka intaas ayaa kusoo gabagabeynaya. waa aragtaan farqiga u dhexeeya client machine iyo server machine. sidoo kale waa aragteen local area network iyo printerada iyo qaabka uu server machine-ku codsiga u aqbalo jawaabna uu bixiyo. Okay, intaas ayaa kusoo gabagabeynaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. ha hilmaamin inaad subscribe tiraahdo Somali Technology.